Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idil ahaantiinba meel walbo dunida daafeheeda aad ka joogtaan. Halkani waa Galaangal Media. Fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar. Haddii aad nala joogtayna waad ku mahadsan tahay sidaad noola joogtay daawashadaada intaba. Waa anigoo ah Sooraan Yare. Halkan waxaan kaga soo gudbinayaa 6 aktar ee dunida ugu hantida badan guryahooda iyo aseendooyinka ama beeraha ay ku raaxaystaan. Fadlan daawasho wacan. Aktarka weyn reer Hindi Amitabh Bachchan ayaa leh hanti gaaraysa $425 milyan oo dollar, aseendo, beer, guri raaxo iyo baabuurta ugu dambeeyay kuwii hore intaba. Aktarka reer Mareykan ee la yiraahdo Tom Cruise ayaa asna leh hanti gaaraysa $430 milyan oo dollarka Mareykanka, baabuur, guryo raaxo, mootooyin iyo meelo kale oo loo dalxiis tago indhaha u roon oo asxaabtiisa iskula baashaalaan. Ninkani waa Robert Downey, waxa uu haystaa $480 milyan oo dollar, guri ka baxsan magaalada oo duurduur ku yaalo meel dhirdhir ah. Waana aktarka kaliya ee ka degan magaalada geeska ugu shisheeyay bariga magaalada New York. Asna waxa uu haystaa beero qurux badan iyo guri qurux badan, xitaa waxa uu haystaa barkadaha dabaasha oo casri ah. Waa aktar aad iyo aad qani u ah, lagana jecel yahay dalka Mareykanka guud ahaanba. Jackie Chan ay Soomaalida aad iyo aad u jecel yihiin, asna waxa uu haystaa $490 milyan, guri aad u qurux badan, beer, barkad iyo meel ay dadku ku nastaan, ay ku shaahaan, ay ku nastaan kuna sheekaystaan. Waa aktar reer China ah, waxa uu ka soo jeedaa magaalada Hong Kong ee dalkaasi Shiinaha oo ah magaalo gooni isu taag ah oo baryahan dambaba mudaharaadyo ay ka socdeen oo doonaya in ay gooni isu taagaan, balse dalka China uu ka diidan yahay in ay gooni isu taagaan, ay dowlad madax bannaan noqdaan. Jackie Chan Soomaalida aad iyo aad baa looga xiiseeyaa, waana aktar qani ah, waana aktarka kaliya ee leh diyaarado u khaas ah. Jackie Chan, waad salaaman tahay. Adam Sandler waa aktar asna reer Mareykan ah, waxa uu haystaa $500 milyan oo dollarka Mareykanka, guri duq ah iyo beerta lagu raaxaysto ujeedaan oo cricketka uu ku dheelo maadaama uu cricketka aad iyo aad u jecel yahay. Vin Diesel aktarka weyn ee reer Mareykan asna waxa uu haystaa guryo raaxo, beero iyo baabuur, diyaarad intaba. Hantidiisuna waxa ay gaaraysaa $540.5 milyan oo dollarka Mareykanka. Waa aktar reer California ah, waxa uu haystaa baabuurta noocyadii ugu dambeeyay, noocyadii dhexe ilaa iyo kuwii qadiimiga ahaa intaba. Waa aktar haysta taageero aad iyo aad u fara badan. Aktarka kale ee caanka ee reer Hindiya Shah Rukh Khan asna waxa uu haystaa $600 milyan oo dollarka Mareykanka, guryo waaweyn oo ku yaala magaalada Mumbai, aseendooyin iyo meelo kale oo asxaabtiisa oo uu kula baashaalo, oo uu ku casriyeeyo, ku caweeyo, oo uu ku nasto, oo xitaa haddii loo baahday in filmaan lagu jili karo. Aad ka taqaanaa aktarka asna musaaracada jile ee la yiraahdo The Rock, waxa uu haystaa $650 milyan oo dollarka Mareykanka ah. ninkan asagana waxaa la yiraahdaa Mark Wahlberg, waxa uu haystaa $12 milyan oo dollarka Mareykanka.
waxa uu asna leeyahay beero iyo aseentooyin aad iyo aad u qurux badan oo xitaa inkastoo uu ka lacag yar yahay haddana agtariinta kaleento haddana waxa uu kaga leeyahay guryaha uu leeyahay aseentooyinka beeraha gaadhiyaanka loo yaqaane lagu raaxaysto oo uu dheer yahay meelo bilicsan oo xitaa madaxda iyo baarlamaanka qaar ka mid ah dalka reer Mareykan ay ugu soo sheeko tagaan una soo dalxiis tagaan. waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijkeena.